shirka Djibouti markii Soomaalidii lagu soo shiriyay teendadaas loogu sheekiyay waxa ku dirirteen qabiil waa la hafray been baa laga sameeyay waxa laga yaabaa dawladda Djibouti inay aqoon darro haysatay aysan la socon xaalka wadankeena waxa kale oo dhici karta inay ula kac ahayd laakiin dadkaas wada fadhiyay oo wadanka gudihiisa ka yimid oo is soo raacay oo wada deganaa baa waxa loogu sheekiyay waa isnacibtihiin waa dagaashantihiin waa dagaalanteen kala qabiil baa tihiin waxayna ahayd arrin khalad ah oo shirka lagu furay waa qodobka koowaad marka in la yiraahdo waxaad ku dirirteen qabiil haddana waxa ku heshiin kartaan qabiil ana waxaan u aqaanaa inay tahay qoorsi iyo sid loo geysanayo aqliga Soomaaliyeed waxa ku tallaabsaday dadkii shirka hogaaminayay oo dawladda Djibouti ka soo 1990kii iyo kowgii Soomaaliya kama dhicin dagaal sokeeye qabaa'il la yiraahdo hawiye iyo daarood iyo digid iyo marifle oo dirareen ma jiraan waxa Soomaaliya ka dhacay waagaasi wuxuu ahaa fawdo waxa afka qalaad loogu magacaabo anarchy oo ay ka qayb qaateen dhowr boqol oo wiil oo Soomaali ah oo hawiye leh oo dir leh oo daarood leh oo digid iyo marifle leh oo jareer leh oo madhibaan leh oo cid walba leh madaxweynaha wadankaas Ismaaciil Cumar Geelle waxa jirta maqal uu duubay oo aad u noqon kartaan oo uu leeyahay anigu halkaan uma joogno inaan xaq ka shaqeyno waxaan rabaa inaan xal ka shaqeyno anigu ma aqaan hadalkaas waxa ka soo tuuray ma aqaan macnaha sida uu ku dhici karo xal iyadoo aan xaq aan la aadin bismillaahir rahmaanir rahiim warbaahinta soomkan waa ku mahadsan tahay inaad mar kale ii soo bandhigteen inaan arrimaha shirka loo balansan yahay carte aan waxay aragtideena tahay aan soo bandhigo waan ku mahadsantihiin inaad dadka Soomaaliyeed aad u furteen platformkan ay afkaartooda ay ku dhiiban karaan shirka carte oo dhacay sanadkii 2000 oo ay dadka Soomaaliyeed qaarkii u yaqaanaan inuu ahaa shirkii nabadeynta ama dad qaarkiis ay u haystaan inuu la mid yahay shirarkii hore oo Soomaaliya loo qabtay waxaan rabaa caaway inaan si cad oo qeexan oo qof walba fahmi karo aan u bayaaniyo dhagarta iyo khiyaamada iyo lugooyada lixaad kale oo shirkaas loogu maleegay ummadda Soomaaliyeed iyo qarannimada Soomaaliyeed shirkaasi waxa martigelisay dawladda Djibouti sanadkii 2000 waxayna isugu yeertay dad Soomaaliyeed oo meelo kala duwan ka yimid ma rabno inaan tuhmad aan asaas lahayn aan soo bandhigno waxyaabaha aan raba caawa inaan ka hadlo maaha in ay gaar u leeyihiin dadka hadda maanta jooga oo nool waxa weey wax taariikh ah oo u hari doono ubadkeena oo ay ka baran doonaan wixii dhacay sanadkii 2000 iyo khasaaraha lixaad kale oo ummadeena ka soo gaartay shirkaasi wuxuu ku bilowday khalad wuxuuna ku dhamaaday khalad natiijadii laga dhaxlayna uma baahan qof Soomaaliyeed loo sheego in 25 sano kadib Soomaaliya ay wali dawlad la'aan tahay shanta arrimood oo aan raba inaan idin sheego oo idin tusaysa shirkaasi inuu ahaa shir hadardaamo badan ay ku jirto waxa ugu horeysa oo ah shirkani marka la furay waxa cid qaban qaabinaysay ay ka dhaadhicisay dadkii meesha isugu yimid oo Soomaalida ahaa oo intooda badan ka yimid wadanka gudihiisa qaarna ay ka yimaadeen wadanka dibadiisa waxa markiiba loo sheegay oo laga dhaadhiciyay arrin sax ah oo aan jirin oo ah in Soomaaliya uu ka dhacay dagaal sokeeye in Soomaalidu ay cadawtooyo iyo nacayb isu qabaan in Soomaali heshiisa aysan jirin inay u dirirsan yihiin qabiil arrinkaas baan marka hore rabaa inaan dul istaago oo qof kasto Soomaali ah oo garaad leh oo si fiican arrintan dhagihiisa u furo wax ka jira ma jiraan waxaas waa been cad iyo masabidasho lixaad leh oo naloo geysanayo dadkeena nool oo Soomaalida ah
1990kii iyo kowgii Soomaaliya kama dhicin dagaal sokeeye. qabaa'il la yiraahdo Hawiye iyo Daarood iyo Digil iyo Mirifle oo dirareen ma jiraan. waxa Soomaaliya ka dhacay waagaasi wuxuu ahaa fawdo, waxa afka qalaad loogu magacaabo anarchy, oo ay ka qayb qaateen 200 oo wiil oo Soomaali ah oo Hawiye leh, oo Dir leh, oo Daarood leh, oo Digil iyo Mirifle leh, oo Jareer leh, oo Madhibaan leh, oo cid walba leh. dhalinyaradaas 400 gaaraysa waxay dhibaato lixaad leh u geysteen markii ugu horeysay qaranka. maxaa yeelay waxay ku wajahnaayeen in ay burburiyaan kaydka documentationka dowladda Soomaaliyeed ay lahayd oo kaydsanaa sida waraaqihii dhalashada, waraaqihii guryaha, deymankii dowladda, liisaskii shaqaalaha, liisaskii ciidamada iyo dalacsiintooda, heshiisyada ay dowladda Soomaaliyeed la gashay dowladaha kale. markii intaas ay hawshooda soo dhaaftayna waxay u soo gudbeen inay hantidii qaranka uu lahaa ay xadaan. markaa kadibna waxay u soo jeesteen in hantidii gaarka loo lahaa ay xadaan. markaa kadibna waxay laayeen dad badan oo maato ah oo qabiil walba leh, qabiil gaar loo laayay ma jiro. markaa kadibna waxay kufsadeen gabdho Soomaaliyeed oo sharaf badan oo qabiil walba leh, qabiil gaar loo faraxumeeyay ma jiraan. waxaa si fawdada ah oo socotay 2 sano iyo 3 bilood iyo 15 casho laguma tilmaami karo dagaal sokeeye. sababtoo anagu dagaal sokeeye waan naqaanaa, waana baranay. wuxuu leeyahay sifaad lagu yaqaano oo dhowr ah. waxa ugu horeysa dagaalka sokeeye waa dagaal u dhaxeeya dowlad iyo dad isbiirsaday, ama qabiil ha isku biirsadaan, ama firqo diini ha ahaato, ama dad si kale isugu yimaad ha ahaadaan, iyo dowladda Soomaaliyeed oo burburtay 1991kii waxay la diriraysay jabhaddii USC oo dowladdaasi tuurtay muddo ka yar isbuuc. 2 sano iyo 3 bilood iyo 15 maalmood oo ay dagaaladu socdeen wax dowlad la yiraahdo oo dagaalamaysa ma jirin, ee waxa hore iyo gadaal u socday dhowrkaas boqol oo wiil oo waxa aan ka soo sheekeeyay biinay. dadku marka waxa iskaga khaldan wixii dhacay oo foolxumo ah iyo inay dagaal sokeeye ahayd. dagaal sokeeye waxa kale oo lagu yaqaanaa inuu saf ahaado. ma jiro dagaal ay Hawiyo idil iyo Daarood oo idil iyo Digil iyo Mirifle oo idil iyo cid kale oo Soomaaliya ee ka wada qayb qaadatay ama si toosa ama si dadban. midda saddexaad ugu daran waxa weeye dagaalka sokeeye iskama istaago. dagaalka sokeeye wuxuu ku istaagaa ama in ay koox guuleysato, qabiil uu guuleysto, oo inta kale uu ku sanduleeyo in uu amarkiisa uu mudiic u noqdo, ama ay iyagu heshiiyaan cidii dagaalamaysay, ama la dhaxgalo oo ciidamada dibadda ka yimid iyo dadyow kale dhaxgalaan. waxayna la tahay qof Soomaali oo loo sheegay ma jirto inaan Soomaali qabiil oo guuleystana uusan jirin, cidna soo dhaxgashan aysan jirin. ilaa iyo maalinkan maanta 2025 idin la hadlaynaa Soomaali isu timid oo ka hadashay wixii 1991 bilowgeedii dhacay inaysan jirin. 2 sano iyo 3 bilood iyo 5 kadib sida hadda nalka shidan oo kale ayaa waxa loo waayay wiilashii Soomaaliyeed oo 5 goobood oo wadanka jooga oo koonfurta ah. taas waxay ku muujinaysaa inay ahayd waxa lagu magacaabo afka qalaad anarchy, aysan ahayn dagaal sokeeye. haddaba shirka Jabuuti markii Soomaalidii lagu soo shiriyay teendadaas loogu sheekiyay waxa ku dirirteen qabiil, waa la hafray, been baa laga sameeyay. waxa laga yaabaa dowladda Jabuuti inay aqoon darro haysatay, aysan la socon xaalka wadankeena. waxa kale oo dhici karta inay ula kac ahayd, laakiin dadkaas wada fadhiyay oo wadanka gudihiisa ka yimid oo is soo raacay oo wada deganaa baa waxa loogu sheekiyay waa isnacib tihiin, waa dagaashan tihiin, waa dagaalanteen, kala qabiil baa tihiin. waxayna ahayd arrin khalad ah oo shirka lagu furay. waa qodobka koowaad. qodobka labaad, waxa dadka loogu sheekeeyay la masabidanayo oo lagu yiri maadaama aad qabiil ku dirirteen oo saan soo sheegay wax jiraba aan ahayn, waxa la yiri maadaama aad qabiil ku dirirteen waxa kaliya aad ku heshiin kartaan waa qabiil. arrinkaas ma aqaan waxaan ku tilmaamo. waa wax alla yaabayso waxa looga dan leeyahay. sababta suuragal ma aha in qof lagu yiraahdo waxa aad ku baabaaday oo jirada ku haysa ku keenay
وكنينيغان عونيسو هذا إسلا مركا اللي يراهدو سيدي كليا ku badbaadi karto waa kiniinka nidaamka governance-ga ah oo dawladnimada ah waxa jira dariiqooyin badan oo loo sameyn karo qabyaaladu meel ay uga jirto ma jirto marka in la yiraahdo waxaad ku dirirteen qabiil haddana waxa ku heshiin kartaan qabiil ani waxaan u aqaanaa inay tahay qoorsi iyo sid loo geysanayo aqliga Soomaaliyeed waxa ku tallaabsaday dadkii shirka hogaaminayay oo dawladda Djibouti ka socday midda saddexaad waxaa dadkii meesha fadhiyay iska sacabatumayay laga dhaadhiciyay oo loo sheegay haddii qabiil wax lagu qaybsanayo in sida kaliya oo qabiilka aad ku qaybsan kartaan ay tahay in afar qabiil oo waaweyn laga dhigo kuwa kaamila inta hartay Soomaaliyeedna laga dhigo dad naaqusa waxa lagu magacaabo 4.5 waxaan rabaa dadkii dhageysanaya oo arintan ay khusayso inaad si fiican u dhageysataan markii arintu meeshaas ay maraysa shirka carte waxaa jira dad Soomaaliyeed oo garaad lahaa oo garasho lahaa oo faham lahaa oo wadaniyada ay ku jirtay oo arinkaas diiday oo yiri marka hore kuma diririn qabiil marka kalena nidaam kale oo wax lagu xukumaa jiray ee qabyaaladu maaha nidaamka kaliya oo wax lagu xukumo marka kalena in Soomaalida qaar ay naaqus noqdaan qaarna kaamil noqdaan waxa ku jirta hagardaamo aad iyo aad u weyn dadkii waxa soo jeediyay ergooyinka kuma jirin gudiyaasha laguma darin qaar kamida shirka waa laga saaray qaar kamida wadanka Djibouti waa laga ceyriyay marka ogaada wax alla waxa aan idin sheegay maaha wax waxyi ah oo ay ugu soo degay oo xaqiiqada dhacday oo ay tahay inaan ilmaheen u reebno dadka Soomaaliyeedna u sheegno hagardaamadii iyo lugooyadii lixaad kala hayd oo dawladda Djibouti ay ku dhufatay qarannimada Soomaaliyeed 4.5 macnaheedu waxa weeye dad fara badan oo Soomaali ah oo aan hawiye ahayn oo aan dir ahayn oo aan daarood ahayn oo aan digil mirifla ahayn oo saddex meelood meel ummadda Soomaaliyeed ah oo dadka u diriray xorriyadda wadankeena dadka ay ka soo jeedeen asaasiyaashii SWL dadka ay ka soo jeedeen nasiib bundihii gosha ku dagaalamay in la yiraahdo Soomaali kaamil ma tihiin oo la yaso waxa la idin qoondeey qaata maxay yiraahdii tiro wax lagu qaybsanayo qofka nus haysta marnaba mas'uul wadanka kama noqonayo taasna waxaan ku weynay xoog weyn oo lixaad leh oo daacada oo wadaniyadu ay ku dheehan tahay waxaan ku weynay dadka Soomaaliyeed oo aqoonta badan lahayd oo reer awdal ah waxa soo idil waxaan ku weynay waxa lagu magacaabo 4.5 qodobka saddexaad wuxuu ahaa waxa inta aan qodobka afraad aan u gudbin waxa weeye qabaa'ilka la yiri waxaad qaadanaysaan hal oo u qaatay in iyaga loo xagliyay oo wax dheer la siiyay xaqiiqda jirta waxa weeye waxa loo dhiibay bambadii waana ku qaraxday bambadii loo dhiibay maxaa yeelay qabiilka la yiraahdo daarood tusaale ahaan haddaan soo qaato oo la yiri waxaad tihiin kaamil ma tihiin nus markii loo dhiibay tiro kooban oo la yiraahdo xildhibaano ah orday qaybsada oo aan lagu darin karateeriyadii ama waxyaabihii qofkaas daaroodka ah oo xildhibaanka noqonaya aan abtirsi ahayn ee lagu dooran lahaa oo qof kasto daarooda ay u furan tahay waxay noqonaysaa arrin aan lagu heshiinayn marka dambe waxay noqonaysaa arrin xoog lisu sheegto marka dambe waxay noqonaysaa inta isku abtirsiga ahayd in qaar laga qaato waxay xaq u lahaayeen waxa meeshaas ka samaysmaysa nacabtooyo waxa meesha ka samaysmaysa qabiilka gudihiisa dadku inay isqabsadaan waxa meesha ka dhalanaysa waxa lagu magacaabo afka qalaad animosity dadka marka la xaqiro oo la baabi'iyo oo Soomaalinimada loo diido oo uu noqdo second class citizen daarood second class citizen hawiye second class citizen digli mirifle second class citizen dir marka uu noqdo qofkaas wuxuu noqonayaa qof aan xataa aan u hagarbaxayn jiritaanka iyo qarnimada Soomaaliyeed waxa aan naqaanaa oo aan baranay marka nation building la samaynayo waxa ugu horeysa waxa weeye in dadka la mideeyo in cadaaladda la sugo in dadka sinaantooda la ilaaliyo in qof walba la tuso inuu xaq wadankan ku leeyahay teendadii sharka ee carta waxa ka dhacay waxay ahayd waxa ka duwan taasana waxay keenaysaa in ummadda Soomaaliyeed u cadeyno hagardaamada meeshaasi ka jirtay qodobka afraad
qodobka afraad wuxuu yahay ummadda Soomaaliyeed weligeed waxay lahayd dhaqanka Soomaaliyeed hadday yihiin malaaqyo iyo odayaal iyo boqorro iyo isimo iyo imaam iyo magac la doono ay sitaan waxay ahaayeen oo aan naqaano dad sharaf leh oo qiimo leh oo loo soo istaago oo laga duceysto oo qaarkood xataa habaarkooda laga baqo waxay ahaayeen dadka iyagu marti soora oo magta inta ugu badan bixiya waxay ahaayeen dadka u dhaxeeya shirka Carte waxa lagu sameeyay khiyaamadii ugu weyneed oo qarannimada Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed jiritaankeeda lagu dhaawacay maxaa yeelay odayaal masaakiina oo aan weligood miyi ka tagin ayaa la daadgureeyay oo teendhada intii la isugu geeyay waxaa la yiri wixii maanta ka dambeeyay ma tihiin odayaal dhaqameed waxaa tihiin siyaasiyiin waxa loo geliyay shaarka siyaasadda hawsha loo dhiibo howl ay barteen ma hawsha loo dhiibo howl ay yaqaanaan ma hawsha loo dhiibo howl ay ka bixi karaan ma hawsha loo dhiibo howl lagu heshiin kara ma macnaheedu waxa weeye in marada ka dhacdo in qiimahoodu hoos u dhaco in qaar ay dhadhamiska bartaan in cimaamada ay tuuraan oo jaakad xirtaan in ummadda Soomaaliyeed marjac ay haysatay oo ummadaas kala hayay ay baaba'do maalinka wixii ka dambeeyana odayaal dhaqameedka siday noqdeen waa ogtihiin waa dhamaatay in habaarkooda laga baqo ee waxay ku dhowdahay inuu hadda caseeyuhu uu magaalada ku dhangadeeyo taana waa mid kale oo hagardaamada ah oo shirka Carte lagu qabtay mid ugu dambaysa oo shanaad oo raba inaan dadka dhageysanaya u sheego oo tusaysa inuu shirkaas u ahaa shirkii sharka inuu shirkaas uusan ka duwaneyn qaybintii Soomaaliya qarniga 19aad loo qaybiyay shanta maxay yeelay waagaas ba Soomaali isku mid ah oo isku luqad ah oo isku diin ah oo isku dhaqan ah oo isku caado ah oo xataa isku abtirsi ah oo waxba isdheereen ayaa waxa laga dhigay shan qaybood shirka Cartana waxa Soomaalidii lagu dhuftay dubal labaad oo qaybiyay oo keenayay inaysan weligeed aysan mar kale dawlad macna leh oo mug leh aysan yeelan si arintaas u hirgasho oo khiyaamadaas ay kaamil u noqotana qodobka shanaad waxa shirkaas loo gacan geliyay hoggaanka siyaasadda wadankeena kooxaha sheegta islaamka sirgaxan islaamka siyaasadaysan islaamka aan ahayn islaamka aan naqaan islaamka aan aaminsanahay aan ahayn islaamka quraanka ku yaala iyo sunnada nabiga aan ahayn ee islaamka ay basharka sameeyeen jaakadaha xiran islaamkaas qolooyinka aaminsana ayaa waxa loo dhiibay xukunka wadanka dadkay dhageysanayo taariikhda u noqda wadamada adduunka fiiriya waxa ay egtaan meel ay kooxahaas magacyada islaam kala duwan oo islaamka siyaasadeed sheeganaya ay tageen oo ay dawlad ka dhismatay ma jirto maxaa yeelay aqoonidooda iyo fahamkooda iyo qorshahooda kumaba qorra wax la yiraahdo nation wadan waxa ku qoran umma oo ah wax caam ah oo fadfaad ah oo fidsan oo aan xuduud lahayn aqoonidooda kuma taalo wax la yiraahdo dastuur ee waxa ku yaala inay mudiic u noqdaan murshidkooda ama jamaacadooda ninka madaxda u ah aqoonidoodu ma aha waxaan anagu nala jaan qaadi kara meel alla meel kasta oo kooxaas loo dhiibana waxa ku dhacay dib u dhac iyo dawlad la'aan haddaba maadaama Soomaalida meesha isugu tagtay marka hore la marin habaabiyo oo la yiri waxa ku dagaalantay qabiil maadaama la yiri waxa ku heshin kartaan qabiil maadaama la yiri qabiilku waa inuu 4.5 ahaado oo qaar Soomaalida ah la quursado maadaama la yiri odayaal dhaqameedku ha noqdaan siyaasiyiin maadaama loo gacan geliyay hoggaanka wadanka shufta diimeed taas macnaheedu waxa weeye shirkaas waa inaan u aqoonsanaa ubadkeenana baraa iskuulaadkana ugu dhignaa taariikhdan ugu sheegnaa inuu ahaa shirkii loogu talagalay inaysan mar dambe Soomaaliya aysan dawlad yeelan waxaan rabaa gabagabadii inaan hal arrin idin sheego madaxweynaha wadankaas Ismaaciil Cumar Geelle waxa jirta maqal uu duubay oo aad u noqon kartaan oo uu leeyahay anigu halkaan uma joogno inaan xaq ka shaqeyno waxaan rabaa inaan xal ka shaqeyno anu ma aqaan hadalkaas waxa ka soo tuuray ma aqaan macnaha sida uu ku dhici karo xal iyadoo aan xaq aan la aadin taa waxay ku tusaysaa wixii meeshaas ka jiray
gabagabadii haddaba waa la yaqaanaa Soomaaliya waxay u baahan tahay iyo siday dawlad ku noqon karto siday Soomaaliya dawlad ku noqon karto waxa weeye markii ugu horeysay inaan ogaano cudurkaas na asiibay sanadkii 2000 qof kale cudur ma ahayna natiijada ha arko 25 sano laga joogaa maalintii shirka la isugu yimid wali Soomaaliya dawlad waa dhisan laadahay wali dawladda Soomaaliya ka jirta iska dhaaf shacabka inay ammaankooda ilaalisay iyadu waa is ilaalin kara laadahay guriyihii dawladda oo idil waxa ilaaliya ajnabi dhaqaalihii wadanka waxa ku haya ajnabi badaheena iyo barigeena waa bayla dawladnimo ma jirto dadkii walaalaha waa is naceen shirkaas arta intaan la qaban ka horow meel Soomaaliya oo dagaal ka socday ma jirto haddana Soomaaliya idil waxa ka taagan dagaalo laga bilaabo marko dagaal qabiila dagaal dhaqaale ah dagaal xildhibaan la isku haysto iyo dagaal siyaasadeed kuwa waxay ka jiraan marka kuwa waxay ka jiraan gado qaar waxay ka jiraan shabeellada dhexe waxay ka jiraan galguduud waxay ka jiraan mudug waxay ka jiraan sool waxay ka jiraan sanaag ma jirin waagi shirka carta la aadayay waxa soo dagaal ah oo socday waana la ogaa cidii waxaan sameysay inay Soomaaliya waxa ku dambeynayso haddaba waxa loo baahan yahay inaan ogaano cudurku meeshuu ka bilowday cudurku wuxuu ka bilowday teendadii sharka ee carte cudurku wuxuu ka bilowday teendada sharka oo fadhiyeen Soomaali badan oo runtii aan waxaan ku tilmaamay aan aqoon iska sacabinayay aan fahmeen waxa loo maleegayo waxa looga bixi karana waxa weeye inaan horta cudurka isla fahamno waxa looga bixi karo waxa weeye Soomaaliya inay dib ugu noqoto xilli ku dhow daakhiliyadii oo 15 sano ah oo ay markaan ay Soomaali hogaaminayaan technocrat ah maaha urur diimeed maaha ganacsato tuuga maaha qof qabiil iyo abtirsi kaliya ay aqoontiisu tahay dadkaas loo dhiiba mandate sax ah oo wadankan ku hagi karaan dawladda Soomaaliyeed oo aan dan gaar ah Soomaaliya ka lahayn aan ahayn dawladaha dariska iyo dawladaha dariishada ka soo galay oo wada naqaan aan ahayn ay Soomaaliya la shaqeeyaan kooxdaas technocratka ah oo wadanka hagaysa loona dhiibo muddo ugu yaraan 15 sano ah sidii daakhiliyadii oo kale loo bilaabay in qofka Soomaaliyeed oo dhalashadiisa loo diiwaan geliyo ciidamadii loo dhiso agabka dhaqaalaha loo dhiso shaqaalihii mar kale dib loo qoro oo aan lagu qorin qabiil iyo qaylo Soomaaliya saasi u baahan tahay anagu wuxuu noo yahay shirkaas carte maalin madow cidda u dabaaldegaysa oo sameysanaysana hadda mar kale waxay quursanaysaa aqliga Soomaaliyeed laakiin ha ogaato in Soomaalida inta badan ay og yihiin dhagartaas waa mahadsantiin